waxyaabaha Puntland ay samaysay wali dawlad samaysa runtii lama hayo boqol nin oo aad qabatay oo kugu soo duulay oo dadkaagii laayay inaad intaad kala saarto hubisid yani da'doodii iyo sometimes qaar baa xitaa la qaawiyay si loo hubiyo muxuu ahaa da'doodu waxay tahay waa dhacdaa waxa sharciga ogol si aanu u dhimanin aanu sameeyna khubaraa baan u keenay si loo hubiyo qofka da'da uu jiro iyo da'da uu sheegtay inay isku mid yihiin wax walba waa sameeyay aakhirkiina waxaan isku raacnay wada socotaan 26 kamid in xamar la geeyay meel la yiraahdo Elman in la geeyay rehabilitation center oo la doonayay in iyaga baldaqan celin runtii loogu sameeyo horena waa uga hadalay waa sheegay Elman warka aanu ka helayna waxa weeye dadkii aanu gudbinay in qaarkood maqan yihiinba mar labaadna dagaal lagu qabtay iyagana waxaan ka codsanay arinta ayada in la baaro oo la raadiyo intaan Elman u diri lahayn waxay noqonaysaa in aanu anagu dhulkayga ku haysano taasna u dirista waxa keentay in aanan markii hore diyaar garow badan aanu jirin oo dhul aanu ku hayno dhalinyarada aanan haynin